kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaanba ugu horreynba waxaan idiin soo tabinaynaa salaan kalgacaltooyo oo dhammaystiran salaantaasi dabadeed haddii allaha awoodda leh oggolaado toddobaadkiiba hal mar waxaan idiin soo baahin doonaa barnaamij googoos ah waxaanuna idinku soo bandhigi doonaa suugaanta Soomaaliyeed iyo kaalimaheeda kala duwan sida gabayada majaajilooyinka iyo waliba heesaha waxaa kaloo soo raaci doonaa sheekooyinka Soomaaliyeed sida kuwa xigmadaha iyo murtida ku salaysan iyo waliba kuwa qosolka ah haddaba toddobaadkan waxaan nasiib u yeelanay inaanu tiigsano fanaanada caanka ah ee la yiraahdo Siciida Shiino oo iyadu ku nool waddanka Faransiiska waxaan fanaanada Siciida Shiino weydiiyay dhowr su'aalood oo aan markaas u arkay inay yihiin muhiim sababtoo ah fanaanadu waxay leedahay heeso tiro badan oo wadani ah iyo kuwo waliba jacayl ah Siciida Shiino waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo heestaada caan baxday ee la yiraahdo Love heestaasi maqasad dhacday bay ku timid mise adiga ayaa abwaanka ka dalbaday mise abwaanka laftiisa ayaa ka sameeyay qiso isaga ku dhacday Ismaaciil aadi aad baan ku salaamayaa hadii aad weydiisay heeskan Love ereyadiisa waxa iska leh abwaan da'yar oo ku nool wadankan ku noolahay waxa la yiraahdaa Gaasira la yiraahdaa laxankuna waa dhankayga muusigana waxa tumay oo ku laray waa Maxamed Weerow dhinaca fiidiyoga kamarada fiidiyoga waxa uu duubay waa Raaga Cali Dheero ku nool wadanka Holland daawadayaal tabeenta aynaan meel kale u kicin bal aynu in yar ku hakano heestaasi maqal iyo muuqaalka iyo fanaanada Siciida Shiino oo isku laba rogaysa Kale lafto
kaleylabka igu qabo kaleylabka igu qabo أنا اللي بقسم معي kaleylabka igu qabo kaleylabka igu qabo bal imikana aynu jallacno dhanka gabayada gaar ahaan nooca loo yaqaan jacburka waxaan haatan idinku soo maqan gabay jacbur ah oo aan horraantii sannadkii 2007 aan ka duubay abwaanka geyiga Soomaaliyeed caanka ka ah abwaan jaamac kadiya cilo haye jaamac aniga iyo gabaygaygu waa inaanu heesnaay waa inaanu kaman qaadano shaaq ku gadanay waa inaanu buuraha korraa habarsi oo dhaarbelle iyo faan ku diray waa inaan xumaan iyo wanaag anigu yeeshay waa inaan ammaan iyo canaan anigu yeeshay waa inaan sideedaba halgaad cali ku laaya waa inay riyuhu qayliyaan tuugsiduu xaday oo ay islaantii jirtay oo waxara ooyaan waa inaan cabbaar aamuso anigu yaabay sidii geesi soo cararay oo meel cidlaa jooga ama fulay dagaalamahaya oo cadowga leynaya waa inaan wixii la hadlaba laab waa inaan basbaas iyo xildid shaah ku kariyay oo aan dhadhamiyaa inuu qaaya leeyahay waa inaan bakeeriga jajaban anigu qaatay oo aan ka buuxsado wixii hadayna rabay waa inay macaan labada fool ila xanuunaan bakayla iyo libaax dirirayo siiga kicinaya waa inaan intaan kala dhex galo hadal u sheegayo aan midkoodii gardaran dhab ugu eexda waa inaan sigaarna u shida lacagna siiya وأن هروفا متكي حقا كتاقنا وين كينو شوكي بدا وانا قانا وين نقويا لا يان كلافو وين إلى قيننا سيهدي دي وين عبا أو خمرية لكن وين هرب شعومبا وين يوان حمالا إلا واسدا ربي سريرتا إلا وين نلقى قبول سيا مركو سيحدو وين قلتا مال وحو سيري وين المراديك قبتها لك يفرات كذا أن عركا وربحها وأن كفينا هي وين الكاك ربحها لك نصارى أو أن كعر إلا ويقوي هي وين ألابت تيجي كباح حورات أنا بقى وين نرتي حجر كتير دي مركان أصو إيجو وين الحسوس طيبوه هاد لي وين تجا عذنا دافع لما سعوت تجي وين القرية مراني عاني هذا وين نقدر رودي ذو كلام مركي داليان وين يقاش قبتاي هذا قومية وات سيدي بل يسكت لي فير سعودي وين عبار كو استعماله قلنا شو هذا يتوقع العقم وإذا الشيطان لنا رانا وسوكر لنشري يقف كيف فرن عنا روسك وين أدير كيس يسوي يشير ولا يسوي هو يقول يا شيء ولا لماذا أي شيء كم هي شيء يعني إن بلاش كقار رودنا ويهبون تايب المحيس كدري وير كي يقبلنا وياه إن البيئة نقاش يا العقم هيستان يقف كده على أرض كيسوا قال يوكلني وقارسنا اللي بحوي يصير يعني مدوري بوحو دونا يا إنه أتكاذاي لين أبي صلى الله صلى سي ولا ما يكرر كذا شو ذو رادي عني واتهاي داوديال صاحبيال هذا البدن هام مبوحشة وعن مركز سعيد الشينو وكسوغان ودك فرنسيسكا ويدي بلين شرحات كوبان كبخيسو هيستا لما قاعد بحثي قرو والله هاسكا كلي قرو ادي ويديسي هاسكا قرو waxa weeyaan waxa iskale abwaan maxamed yaxya laxanka iyo erayada baa isaga iskale muusiguna waa maxamed weerow fiidiyooguna waxa weeyaan waa isla raaga cali dheere ayaa duubay marka heestaasina saas ahayd wallahi heeska sababta loo sameeyay anigu ma garan karo abwaanka la weydiin karaa erayada iyo sidoo wuxuu ula jeeday ujeedadiisa isaga la weydiin karaa anigu waxaan ahay hadaan fanaaninahay waxaan ahay soo gudbiyaan ahay abwaanka maskaxdiisa ka soo maxatay uba fasiri kara ama wixii uu sabab sababta uu sameeyay anagu ma ogaan karno anagu waa soo gudbinaynaa قلبي قاعد كويس
fanaanada Siciida Shiino waxay barisamaadkii riwaayado badan ay la matashay kooxdii waa bari ee xilligaasi ku suntanayd magaca fanaaninta qaranka Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaa weydiiyey fankii waayadii hore iyo kan hadda jooga maxay ku kala duwan yihiin, maxaase u soo jeedin lahayd hal abuurada waqtigan midhaha u curiya da'yarta fanaaninta. Ismaaciilow waxaan kaloo kuwa idii yaanu hayaa oon doonaya inaan soo bandhigo oo hees iminkan waqti dhow soo bixi doonta oo la yiraahdo Cuyuban. waxay oranaysaa cuyuban caashaqi galaya cubiyo ciil buu dhalaa cayayoodi isagoo ciidinka ninka ku cunay ciyaarta siduu ku helay halkaa cabasha ka timi codkaygu ka caaganaa halka cabasha ka timi codkaygu ka caaganaa cajabay waayu dhigeen cashaq waa caadadii cajabay waayu dhigeen cashaq waa caadadii. heesaasna waxaa la yidhaahdaa Cuyuban. taasina waxay tahay waa hees hadda foodan kusoo hayso Kamisoma. waxaan kaloo doonayaa inaan halkan aan kaga faa'iideysto maanta videogan aan kaga faa'iideysto de Ismaaciilow horta sida runta fanku horta waa dhib badan yahay, aad iyo aad buu dhib badan yahay. wuxuu u baahan yahay in waqti la geliyo, wuxuu u baahan yahay in meelo badan laga rogrogo, wuxuu u baahan yahay erayga aad saan loogu dhawaaqayo inaad ka fiirsatid. micno badan ayuu eraygu samaynayaa. haddii aanan sida de af Soomaaligeenu u yahay oo aynu ugu dhawaaqno ama aynu baranay ee suugaantu tahay sidii de fanaanintii hore oo kale aanan uga fiirsan oo looga fiirsanin de bad buu kula gelayaa, qasaaro kula gelayaa, oo heeska qasaaro noqonaya, heeska tuuris buu noqonaya. marka waxaa fiican had iyo jeer qofka fanaanku inuu isdhegeysto horta, inuu dhinacyo badan uu ka eego. awaanku sidaas leeg erayga markuu sameeyo de eray delqaaf ah oo de bila asluub oo de mutaxan inuu yiraahdo maaha. eraygu waxa weeyaan inuu eray baldahan noqdo. suugaanteenu de asalkeeda banaanba suugaanteenu waxay ahayd de suugaan qani baan ahayn, qani baan suugaanta ka ahayn. arrimaha lama qeexi jirin iyadoo maxay ahayd loo baahan la tilmaamayo gabadh ayaa geed la tilmaami jiray. waxaan ahayd asturaada ayaa meesha ku jirtay iyo qurxis. heeska waa la qurxinayaa oo heeska haddaan la qurxin oo gabadhi dee meelo lasoo marmarin oo geel iyo gamaan iyo faras iyo adduunyadii aan loo soo marin dee wixii micno yeelan maayo. wuxuu noqonayaa wax iga marada laga faydo kale mu noqonaya. wixii haddii marada laga faydona fayda ma yeelanayo. marka suugaantu waxay u baahan tahay in laga fiirsado inuu abwaanka sameynaya hees de murti leh oo wax soo kordhinayso micno leh inuu soo gudbiyo. fanaankuna de inuu ku luqayo bulshada u soo gudbiyo ayay ahayd. marka anagoo ka duulayna fanaaniinteenii hore iyo dadkii de abwaanintii naga waaweynaya fanaaniintii naga waaweynaya de dadkii de hore de ila dhaxal bay ka tageen. dhaxalkii maaha in qasaara laga dhigo, in lagu daadiyo maaha, waa in iyaga lagu daydaa, waa in dhaxalkii ay ka tageen kor loo sii qaadaa. bulshada waxaan u sheegayaa horta waxa fanka la yiraahdana waa wax dhib badan. wuxuu badan yahay waqti la geliyo, wuxuu badan yahay kharash la geliyo, wuxuu badan yahay maskax u baahan yahay, wuxuu taageer u baahan yahay. haddaan intiiba jirin de fanku ma jirayo, fanaankuna macna ma yeelanayo. fanaanku bulshadu ku dhisan yahay, idinku idiin baahan yahay. adigaagan ka soo qaday Ismaaciil adigu ku baahan yahay, waa adigoo kale, way adigan sii gudbinaya, waa adigan dadkii u sii gudbinaya. wariyaha iyo fanaanku ma kala maarmaan, kamarada iyo muuqaalku ma kala maarmaan, heeska iyo muusigu ma kala maarmaan, erayada iyo abwaankuna ma kala maarmaan. oo saasa midba mid ugu tiirsan yahay. laakiin baryahan dambe waxay noqotay iska orod bay noqotay. sidii qaxooti loo noqdo marba de saas looga cararayo, marba doon loo raacayo, marba fankiina noqdo, marba heesba meel baa laga raacaya.
hees ma tahay laxan oo laxan ma tahay de hana la yaabinina waxa weeye de waqtiga dhalay waqti badan oo la geliyana waa baahan tahay maxay ahayd waqti loo helo oo de iska garanti mashaakil baa iska jira oo la isku ogtihiin marka wax weeye fankuna waa saas suugaanteeni weeyaan waa sharafteeni waa dhaqankeeni intuba waa dhaxalkeeni marka waxaa loo baahan yahay abwaaninta khaas ahaan haddaan abwaaninta la hadlo abwaaninoo wax tayo la soo saara fanaaninta wax tayo la u dhiiba hees ma tahay ha u dhiibinina fanaano hees ma tahay iska qaadin heesku inuu macna ku fadhiyaa heesku inuu hees maxay ahayd maldahan inuu ahaado oo de jacaylkan baase jacayl waa ku jecelahay la leeyahay jacayl waa maxay de baalka madaha oo hagaajiyo qurxiya sidaas iyo waxa dardaaranka intaasaan kaga tagayaa intaasina waa intaan idin soo jeedinayay daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii googooska ahaa tan iyo intaan barnaamijka lamid a isugu imaanayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi iyo ismaqal dambe iyo is arag dambe oo xiiso leh